munaasabadii heersaraa loo soo agaasimay oo ujeedadeedu daarnay daahfurka ururka wadajir ee beesha Gadiid Cumar oo degta waqooyiga iyo galbeedka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa lagu qabtay Hotel Saba ee magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay xubnaha ugu sarsareeya ururka wadajir ee beeshaasi waxgaradka cuqaasha aqalka guud ee beesha Gadiid Cumar ugu horreyn waxaa bartaasi ka hadlay afhayeenka guud ee ururka wadajir Cabdiraxmaan Xaaji Muuse markii ururka la aasaasay hal qof ayuu ka soo fulay in urur la sameeyo dhowr jeer baa la isku dayay laakiin ma suurtagelin laakiinse si taas aan uga hortagno oo nala ogaagtaan intii ururku soo jiray wixii dhaqaale ururay waxa lagu qabtay xataa ha yaraato waxa jiray ururku arrimo ka mid ah dhalinyarta xaafadda inay wixii awoodooda taageereen wixii dhaqaale ururay markaa iyadoo yartahay runtii oo qadarka la siiyay ama dhalinyarta lagu taageeray uu yaraa gaadheen heer ay iibsadaan gawaadhi u khaas ah waxay sameeyeen waqtiyada dhibaatooyinku abaariyo waxyaabahaas yimaadaan yacni gurmad aad iyo aad u laxaad weyn waxay sameeyaan inay tiro 50 qof ku dhow jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadaha waddanka ay ka bixiyaan waynu ognahay dabaqado way kala leeyihiin oo misaal qoys baa iska bixin karin fiigii iskuulka aan ka bixin karin oo sidoo kale waxa isna bartaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee ururka wadajir Diiriye Cabdi Qalile fikirka aniga iyo Caaqil Ismaan Axmed Rooble ayaa horta guddigeedii lahayn waka Caaqil Ismaan Axmed Rooble waa caaqilkeena xaafadda maanta wuxuu yiri odayaashan waan isku keeni kari waayay dadkina waan isku keeni kari waayay dhalinyartiina idinkeedii taagantay qabsadeen kala daadsanaanta xaafadda taale siiba dhalinyarta xaafadda كليو لبدي قف حديث كوري ما داس ما قرنيا وحويان رسول الله صلى الله عليه وسلم قف كشعيل بول إن أتشش الله ديري رزقنا الله واسعيه فليسن رحمه رحم كير وحن كالمو ولا تنمو عاومو أي نهرت وكاس كوني أي نلا كرب الله أي نلا قبضه أنتي فكر كاس دليرته تبدن كله ولا قاتل وينكم هالسين وفي عين فكر كلنا قف هدوك سوفلو ده أنت فلين تراه هوش فليسي أيها هذا كسي ولا كسي أو فكر كقف ممكن مدى sidoo kale waxa isna bartaasi ka hadlay aqalka guud ee beesha Gadiid Cumar Ismaaciil Axmed Rooble simanka la yeey jiraan baaya way birkoon odayaasha yeeri jiray laakiin maanta carruurta yeerisa waxa weeyaan xabays bedeli waan ku raacsanahay boqolkiiba aad baan u raacsanahay وانا فاهم مليان وانا مدعيننا هوش هاي كلام ويا نجي نجي من الله إذا ده نجي نجي من ويدي إنا يجوا سركان ويا وحقب صدام ويا نجي ما ترى هذا والبرسوك عليه وانا مسكون كده وحوي يرضى وشو لله وشو وياه وانا كل مسين وانا كل لبانية وحمشة تعالى وحوي سوى حقب صدام وحقب صدام سكول كيس قدر يسولي ويقول جامعة الدنيا هذا إنا نجوا شاعر كده الدنيا ثم قرص وحلو بهاي إن الله سبحانه إن قعدت على سبحانه إذا كي ما تنطق كلام